السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا qiimaha qadarinta mudan ahlan wasahlan soo dhawaadan dilayahay masha Allah maanta waxay noo wadaa cunteera caafimaadka u fiican bariis iyo baasta kaga maarmi kartid booski bariiska kuu geli kara laakiin kaaga faa'iido badan caafimaad ahaan waxaa leedahay geedkan ama alaabtan burqul waa haruudhka oo kale masha Allah koob ayaan soo qaatay burqula waxaan ku soo daray 2 koob oo biyo oo karkaraya aad biyo weyn oo karkarayaan waana ka dayn kartaa sida bariiska u meedhi kartaa laakiin waxaan jeclaystay inuu iisii jilco basasha ayaan dabka soo saaray basasha markay midabkeeda isbedelo dahabi noqday hilib baan kusoo daray kadibna sinjibiil iyo toon baan kusoo daray iminkana waxaan ku daraya barbarooni aan soo jarjaray si fiican markaan intaa isku dhexgeliyay xawaashidii baan ku darsanaya xawaashiduna waxay ku xidhan waxaad u jeceshahay kaamuun geeda buurbuur huruud babriika filfil hayl xabad basbaasa iyo dhagayare waxaan kaloo kusoo daray rumaanka sooskeeda malgacada iyo malgacata mandhashishiida masha Allah intaan si fiican isku dhexgeliyo waxaa kaloo kusoo daraya maaji ama maraq digaag taasina waa ikhtiyaari haddaad rabin waa iska dayn kartaa waxaa kaloo kusoo daray 3 miro tamaandha aan soo haqay masha Allah tabaaraka raxmaan intaasoo si fiican isku dhexgelinaya markii si fiican iskugu soo hurtay cabaar waxaan kusoo darayaa milixdana waad u qiyaasaysaa maadaama maaji ku dartay milixda waad ilaashanaysaa waxaan kusoo darayaa kabsar baan kusoo daray maasha Allah intaa kadibna waan soo biyeynayaa xoogaa baan soo deynay intayda hilibka soo jilacayo ugu yaraan saacad hilibkay ku xidhan tahay hadba hilibka aad markaa isticmaalay hilib jilicsan hadduu ka yar haddii kalena ilaa saacad baa daynay si fiican markuu soo koro hilibka soo jilacay waxaan soo qaatay burqulkii waad aragtan suu u batay biyii markaan la dhigay xoog buu soo batay kadib ilaa 15 daqiiqo ayuu soo karaya maadaaman biyo kulul la soo dhigay yacni wax badan uma baahna masha Allah sasuu kala daatay xabad xabad ugu taagan yahay macaankiisana lagama sheekayn karo allahuma baarik waxaan soo gaadhnay waqtigii aan dhadhamin lahayn dhadhankii sida uu yahay runtii aad baan uga helay bariiskana xataa uu ka wanaagsan masha Allah uuna ka howl fudud yahay dariiqii bariiskaad maray laakiin aad uga fudud yahay masha Allah tabaaraka raxmaan waan waxaad hogtida calooshaada gelinaysidoo aad ogteen oo caafimaadkiisu iyo faa'iidadiisa aad u sareeyaan masha Allah ilaa caafimaad haynoo wada geliyo waxaa rajeynaya laanta hadda ila soo gaadheen inaad ka bogateen fadlan subscribe-ka iyo like-tana wax